waxaa laga wada hadlayaa colaadii udhexayn jirtay dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya waxay dadka Soomaaliyeed u hoggaanayeen xuquuqdooda meesha yaala marka kaas laga wada hadlaya marka dadka Soomaaliyeed aad leedahay ma waxaad uga jeedaa colaadii dhex martay Soomaaliya oo dhan iyo Itoobiya mise Soomaalida kililka shanaad gobolka loo yaqaano degan ee Soomaalida iyo dawladda Itoobiya ay ONLF ka soo horjeeday baad u jeedaa aniga Soomaaliya ogaadeenaya colaadii dhex martay iyo halgankii ay jawaac hogaaminaysay colaadii Itoobiya dhex martay halgankii jabhadii Soomaali galbeed halgankii jabhadii Nasrullah halgankii dadka Soomaaliyeed ogaadeen ku nool ama Soomaali state ku nool khilaafkii Itoobiya ka dhaxeeyay laga wada hadlayaa meesha colaadda haddii is-afgarad yimaado oo la aqbalo in la soo afjaro ONLF ma ka soo tanaasulaysaa mowqifkeedii hore ee ahaa aayaka tashiga iyo in ay afti ka qaadaan dadka gobolkaas oo ay kaba go'aan Itoobiya maya ONLF kama tanaasulaysa aayaka talinta shacabkaas kale xaqa aayaka talinta shacabkaas kale waa xaq caalami ah oo qaanuuni ah xeerarka Itoobiyana way qorayaan xeerarka caalamigana way qorayaan waa xeer caalami ah oo حقوق سياسية قومية كفلات هي الدولة أو كل شيء ربطة أديكنا كرته مركا حقا سنت وحلا هيك لكن ما هولي marka imika xaqaasi ma waxaad wada hadallada ku darteen oo ajendaha ku jiraba in aayaka tashiga iyo suurtagalnimada inuu gobolku ka go'o Itoobiya waxyaabaha aad ka doodaysaan ee aad kula xaajoonaysaan miyay ka mid yihiin aayaka talinta waa ka mid maxaa kale aad ka wada hadlaysaan ee aan aayaka talinta ahayn وهذا بلارن بعد عندنا معلومات فودي نوصل هي وسياسية ويا كتلنت هي حقوق سياسية وكل كلمة وحاكلوا الله رب أرمها أمان لما الله بدنا وحاولوا رب أرمها بقالها تقولوا يلا يلا هذا دونا iminka Itoobiya isbedelkan yimid hadii uu horseeday in ururadii oo dhan la siiyo fakaak siyaasadeed oo ay aaraadooda ku soo bandhigi karaan kagana ololeyn karaan Itoobiya oo dhan waxa ay doonayaan idinku wali aayaka tashigii miyaa ku sii dhaganaanaysaan mise horta waxa isku dayi doontaan inaad siyaasadda si buuxda uga qayb qaadataan kadib hadii aad ku guuleysataan uu qodobkaasi iman doono mise qodobkaas aad ka bilaabaysaan aayaka talintu weligeed way joogaysaa نحن ومبادئ أيها الجنة شعب الصوماليين مبادئ والدجالة يوية ما كان مرنا لما تناسليه أرماه ولا هذا الرح عشان ده كمثل أساسا mid baa la isweydiin karaa ah gudoomiyaha ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan kasakow inuu jabhadan hogaamiyo waxa kale oo ahaan jiray generaal sare oo ka tirsanaan jiray ciidamadii Soomaaliya ee badda arrintaasi dhaawac siyaasadeed ma idinku yeelanaysaa maadaama loo arki karo inuu yahay muwaadin dal kale ما waxay noo tahay credit ama taariikh iyo waayo-aragnimo Soomaaliyeed oo aan ku faanayna weeye inaanu Soomaaliya wada dhalanay ama madax ka noqonay ama dalka wada leenahay wax cidna laynoo tahay maaha laakiin cadaano sidaad carabka ku dhufatay markii dhaweyd xeerarka caalamiga ee xataa idin ogolaanayay idin siinayay inay dadka gobolku ka tashadaan aayahooga maadaama ay xeerarka laftoodu dhigayaan xuduudaha jira muwaadiniinta u dhalatay inaanay dal kale arrimihiisa siyaasiga faragelinin taas miyaan lagu doodi karin oo la oran karin maadaama uu ururkan hogaaminayo muwaadin Soomaali ahi waxa Itoobiya ka doonayaan muxuu yahay dadka Soomaalida dalka way wada leeyihiin xuduudii isticmaalku dhigayna dadka Soomaaliyeed ma ayna tixgelinin annagana kuma qasbanin inaan tixgelino laakiin dastuurka Itoobiya waxa uu muwaadin u yaqaanaa cidda ku dhalatay xuduudaha sugan ee dunidu garanaysa Itoobiya oo kaliya Soomaalida Somali state ama ogaadeen ku noolba anagu matalayna laakiin dadka Soomaaliyeed xaq ay wadaagaan baa jira ka wax noo diidi karaa ma jiro waxyaabaha lagu heshiinayo haatan ma la isla sii qormeeyay oo ma la garanayaa qodobada laga yaabo inaad isla meel dhigtaan oo aad heshiis kama dambaysta ka gaadhaan shirka weyn baa lagu lafaguri doonaa waa arrimo ku saabsan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga iyo xuquuq insaanka iyo faylkii weynaa ee wada hadallada ee ONLF diyaarsatay kaasa laga wada hadli doonaa